السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان صاحبة الصوماليين ملك السؤال جوكتان يسكر سؤال دو داوليسان حلو ونكسن موضوع حقوق سابسيها لما قضب كواد حوي مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني او اد وين وجيدي مدحوينها وقت يوصل بعضي حسن محمود علسو قضب كلامنا waxa weeye dadaalkii beesha caalamka iyo cadaadiskii oo meeshii ugu sareysay gaaray iyo madasha mustaqbalka Soomaaliya oo isugu jirta madasha sabata bixinta iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo soo magacaabay guddigii farsamada ee laga doonayay magacyada guddigaas iyagana waalid la wadaagi doonaa adagana waxaan ka codsanaa muuqaalka like saartaan dhala wadaagtaan saaxiibadii waayahay marka hore aynu ku bilowno madaxweynaha Puntland سعيد عبد الله الدني او اد وين وجيدي مدحوينها وقتيسو دماتay حسن محمود علسو والمدحوينه الدني aynu daawan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday xasan sheekh maxamuud asagoo uga gol leh in uu guud ahaan amniga dalka gacanta ka baxo si uu uga gaaro dana gaaban iyo masaalix waqtigeedu soo bixi doonto wuxuu si bareer ah ugu burburiyay wuxuu si bareer ugu abuuray burcadbadeed xeebaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland oo ay ogtihiin dhacdooyinka ka dhacay bilihii la soo dhaafay wuxuu horay duulaan hubaysan ku qaaday magaalada Raskamboni ee dawladda Jubbaland asagoo halka ku dilay muwaadiniin Soomaaliyeed iyo in ciidamadii uu khalday ay isu dhiibaan ciidamada amniga ee dalka Kenya wuxuu sidoo kale afgambi siyaasadeed iyo khalkhal amni ka sameeyay magaalada Baydhabo asagoo xoog ku muquuniyay meeshana ka saaray nidaamkii maamul iyo kala dambeyntii ka jirtay wuxuu jajuub iyo afduub iyo xarig iyo dil ku hayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan wuxuu weerar ku qaaday madaxdii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo si nabad ah ugu sugan guryahooda oo degan yihiin magaalada Muqdisho sida aad la socotaan madaxweynihii hore wuxuu hagardaamo iyo in uu fashiliyo isugu dayay kacdoonkii shacabka ee magaalada Laascaanood ka dhacay bishii December 2022 ilaa Agost 2023 asagoo markii dambana isku dayay in uu colaad siyaasadeed iyo kala qaybin bulsho dhex dhigo dadka walaalaha ah ee guud ahaan Puntland ku nool hase yeeshee garashada wanaagsan ee shacabka gobolka Sool iyo guud ahaan Puntland ayaa ka fogaaday in ay dhacaan dhagarta madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale Xasan Sheekh ayaa isku dayay inuu fashiliyo halganka ciidamada geesiyaasha ee Puntland ay muddada dheer kula jirtay cadawga argagixisada Daesh asagoo is hortaagay ku sameeyay taageerada iyo saad kala duwan oo aan ka heli lahayn qaar ka mid ah saaxiibada caalamka wuxuu karoo calqaradayn joogto ah ku sameeyay diyaaradihii ciidanka ka gacan siinayay dagaalka iyo kuwii dhaawacyada dibadda u qaadayay iyadoo oo si joogto ah loogu diidayay in la siiyo ruqsadaha duulimaadka hawada Soomaaliya dawladda iyo shacabka Puntland oo fahamsan dhagaraha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isha ku haya fargelinta joogtada ah ee uu ku doonayo inuu ku carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida ka jira deegaanada Puntland dawladda Puntland waxay si dhow la socotaa in madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu dhaqaale ku bixinayo in dhalinyaro maleeshiyaad hubaysan ah lagu abuuro deegaanada ka tirsan degmooyinka Xaafuun Bayla Eyl iyo Jariiban ee Puntland dhalinyaradaas ayaa qaarkood loo diyaarinayaa inay gacan siiyaan kana qayb qaataan howlgallada burcadbadeedka ee lagu abaabulayo xeebaha degmooyinkaas dawladda Puntland marna ma aqbalayso qaybna kama noqonayso in meesha laga saaro hannaanka dawlad dhiska heshiiska lagu yahay ee federaaliga ah uuna saldhigga u yahay dastuurka ku meel gaarka ah ee 2012 waxayse diyaar u tahay inay qayb ka qaadato sidii lagu gaari lahaa heshiis siyaasadeed oo suuro gelin kara doorasho heshiis lagu yahay hay'adaha federaalka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani haddaynu u gudubno qodobkeennii labaad maalin dhaweyd waa tii guddi farsamo nimankii Turkigu ay u direen dhinacyada kala duwan ee khilaafku ka dhaxay madasha mustaqbalka Soomaaliya waa kuwii shuruud ka dhigay haddii muxuu ahaa madaxweyne farmaajo guddi gaar ah uu yeelanayo anagu hawsha kuma jirno ala kulli xaal waxay la tahay hawshaas in socon weysay cadaadiskii beesha caalamkuna uu ku sii batay dhinacyada ugu dambeynna madasha mustaqbalka
soomaaliya oo isku jirta waxay soo magacaabeen guddi ka kooban 5 ruux guddigaas maxamed dhabancad oo ex wasiir puntland ah wuxuu matalayaa madaxweyne saciid cabdullaahi dani cabdirashiid jire wuxuu matalayaa isaguna madaxweyne axmed madoobe sidoo kale 3 xubnood oo madasha mustaqbalka matalaya ayaa la magacaabay waxay kala yihiin cabdiraxmaan caynte cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdullaahi maxamed cali sambaloolshe 5taas ruux ayay soo gudbiyeen isku jirkooda madasha mustaqbalka Soomaaliya waxaan rajaynayaa in dhinacyada kalena ay soo magacaabi doonaan guddiyadoodii sida muxuu ahayd nabadii nolol oo hogaaminaya madaxweyne farmaajo iyo kooxda waqtigeedu dhamaaday ee xasan maxamuud calasow insha Allah taala horta waxa la yiraahdaa aan wada hadallo waan heshiino wada hadalku markasta waa muhiim inkastoo ninka lala gelayo wada hadallada uu yahay in aan muxuu ahaa ballan iyo axdi lahayn hase yeeshee cid kale ayaa dabcan hadda garwadeen ka ah oo waxay ila tahay yani isagana geed ku xirin doonta intaas waxa weeye arrimaha gudaha wixii naga soo gaaray dibadda haddaynu u gudubno waxa heshiiyeen Mareykanka iyo Iiraan halkaasna waxa ku khasaaray reer Koonfur dowladda Mareykanka iyo saaxiibadeeda waxay dib u dhiska Iiraan uga qayb qaadanayaan baa leeyahay $300 bilyan dabcan carabtii ayaa laga qaadayaa waxay la tahay in Mareykanku jeebkiisa lacag uusan ka soo bixin nimankaas waxa weeye carbeed weligoodba lagu xuuxin jiray nimanka walaalahooda Iiraaniyiinta ah dagaalka waxay rabeen in Iiraan lagu soo afjaro laakiin markii la soo afjari waayay hadda waxa la yiri gacantaada gooyin kale waa la dhunkadaaye ceelasha shidaalka dhaqaalaha ka soo baxa la kaalay nimankan dalkooda dib loogu dhisay sababta waxa lagu sheegay in la ogaaday Iiraan inay haysato alaabtii waaweyn marka dib baa loo gurtay reer Koonfur wiil raali kama aha laakiin cid wax weydiinaysa ma jirto dhanka kale madaxweynaha Somaliland waa kii tagay muxuu ahayd Israa'iil halkaas fadeexad weyn baa isagana ka soo gaartay nimanka xuutiyiinta ah ee Yemen deganna waxay ballan qaadeen haddii wax dhaqdhaqaaq ah reer Koonfur ka sameeyo Somaliland jawaab kulul inay ka bixin doonaan warama la arkay Hargeysa marka xamar ku soo qaxday tuyay aqoonsi helaan ku roore إن شاء الله تعالى dadkaas walaalaheena ee shacabka balaayo uma rajeynayno laakiin siyaasiyiintu waxa weeye geed aan hoos lahayn bay hoos fariisiyeen ugana dhigeen meel ay qoraxda iyo dhaxantaba uga gamban karaan إن شاء الله تعالى wuxuu soo kordha warkayna barnaamijkeena intaas ku soo gudbinayaa hada billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh